Ma dareentay mar noloshaada sidaan? Waxaad rabtaa inaad gaarto wax weyn. Waxaad ku riyootaa guul. Waxaad qiyaasataa nolol ka fiican tan hadda. Laakiin marka la gaaro waqtigii ficilka, waad dib dhigtaa. Waxaad tiraahdaa beri ayaan samaynayaa. Haddii aad tahay qof hami leh laakiin caajis ah, sheekadan adigaa loogu talagalay. Waxaa laga yaabaa inay gebi ahaanba beddesho sida aad nolosha u aragto. Mar baa waxaa jiray tuulo yar oo ay ku hareersanaayeen beero cagaaran iyo geedo dhaadheer. Tuuladaas waxaa ku noolaa nin dhallinyaro ah oo la odhan jiray Amiir. Amiir wuxuu jiray 25 sano. Wuxuu ahaa nin xoog leh, caafimaad qaba oo leh riyooyin badan. Wuxuu mar walba saaxiibadiisa u sheegi jiray, maalin ayaa noqon doonaa beeralayga ugu taajirsan tuuladan. Beertaydu waxay noqon doontaa mid dahab u eg oo dalag badan leh. Dadku way ii imaan doonaan si ay talo iga weydiiyaan. Aniguna meel walba waa la iga ixtiraami doonaa. Dadka tuulada waxay aad u jeclaayeen hamiga Amiir iyo riyooyinkiisa waaweyn. Laakiin waxaa jirtay hal dhibaato. Amiir wuxuu ahaa caajislow. Markuu qoraxda soo baxdo, dadka kale waxay tagaan beeraha si ay u shaqeeyaan. Amiirna wuu seexdaa. Marka dadka kale qoraxda hoosteeda shaqeeyaan, Amiir wuxuu fadhiyaa hooska geedaha isagoo ku hadlaya riyooyinkiisa. Markay habeenku u socdaan inay ka soo qaadaan biyo ceelka, Amiir wuxuu dhahaa waxaan samayn doonaa goor dambe. Wuxuu mar walba lahaa qorshayaal waaweyn, laakiin ficil ma uusan samayn. Wuxuu jeclaa inuu ku riyoodo guul iyo sharaf, laakiin wuxuu necbaa shaqada adag ee guushu u baahan tahay. Maalin ayaa adeerkiis oo waayeel ah oo ahaa beeraley xikmad badan u yimid booqasho. Wuxuu Amiir ka fiiriyey beertiisa madhan. Dhulka waa hodan, laakiin waxba kama bixin. Adeerkii wuxuu yidhi, Amiir, wiilkayga, maxay beertaadu madhan tahay? Waxaad ka hadashaa dalag dahab ah, laakiin waxaan arkayaa ciid qalalan oo keliya. Amiir ayaa qoslay oo ku jawaabay, hawalwelin adeer, beri ayaan bilaabayaa. Beertaydu waxay noqon doontaa tan ugu wanaagsan. Sug oo arag. Adeerkii wuu ka niyad jabay. Wuxuu horay u maqlay ereyga beri marar badan oo aan waxba ka qaban. Markaas ayuu go'aansaday inuu Amiir cashar siiyo. Wuxuu jeebkiisa ka soo saaray 2 boorso oo yar, mid kasta oo ka kooban seed gaar ah. Wuxuu Amiir siiyey 2 iniin oo yidhi, kuwooyinkan ma aha iniin caadi ah. Waxay yihiin iniino sixir ah. Iniinta koowaad, iniinta hamiga ambition seed. Haddii aad beerto oo maalin kasta daryeesho, waxay u kori doontaa geed weyn oo kuu keena miro, hoos iyo maal. Iniinta labaad, iniinta caajiska laziness seed. Haddii aad beerto, si dhaqso leh ayay u kori doontaa, laakiin waxay faafinaysaa haramo ku fidaya beertaada oo burburinaya wax kasta oo kale. Adeerkii wuxuu yidhi, Amiir, 2 iniin waxay hadda gacantaada ku jiraan. Mustaqbalka beertaada iyo noloshaada waxay ku xiran tahay midka aad daryeesho. Amiir wuxuu fiiriyey 2 iniin, mid hamiga, mid caajiska. Wuxuu maskaxdiisa ku yidhi, dabcan iniinta hamiga ayaan dooranayaa. Waxaan rabaa guul. Laakiin subaxdii markii uu kacay, wuxuu dareemay daal. Wuxuu yidhi, beri ayaan beeri doonaa. Maalmo ayaa soo maray. Ugu dambayntii, si aan dan lahayn oo xiiso awgeed, wuxuu go'aansaday inuu 2 beero. Isagoo naftiisa u sheegay, bal arag waxa dhici doona. Mar kasta waan daryeeli karaa hadhow. Isbuuc ayaa ka soo wareegatay. Amiir wuxuu iloobay iniinta. Wuxuu maalintiisa ku lumay hurdo, sheeko iyo riyooyin ku saabsan guul. Maalin ayuu ugu dambayntii tagay beertiisa. Wuxuu si weyn ula yaabay waxa uu arkay. Iniintii caajiska ayaa si dhaqso leh u kortay. Haramo dhumuc leh ayaa ku faafay ciidda. Waxay ka buuxisay dhulka oo dhan. Wax walbo ayay ku dumisay oo ku garaacday. Iniinta hamiga ayaa daciif noqotay oo yaray oo ku dhoweyd inuu dhinto. Sababta wax daryeel ah iyo waraabin ma helin. Riyooyinkii Amiir waxay isku beddelayeen nooc cabsi leh. Adeerkii ayaa mar kale yimid oo beertii arkay.
wuxuu amiir ku yidhi, amiir, eeg beertaada, waa noloshaada oo muuqata. Hamigu waa sida iniin yar, wuxuu u baahan yahay daryeel, shaqo iyo ficil maalinle ah. Haddii aad iska indhatirto, wuu dhimanayaa, laakiin caajiska iskiis ayuu u koraa, si dhaqso leh ayuu u faafaa, wax walbana wuu burburiyaa. Wiilkayga, waxaad rabtay inaad noqoto qof weyn, laakiin caajiskaaga ayaa hore u burburiyay mustaqbalkaaga. Amiir wuu istaagay, gacmihiisa ayuu ku taabtay iniintii hamiga ahayd oo ku ooyay. Markii ugu horeysay wuxuu si dhab ah u fahmay xaqiiqda nolosha. Riyooyinka keliya ma filna, ficil joogto ah ayaa riyada nool ka dhigta. Habeenkaas amiir ma uusan seexan karin. Wuxuu ka fikirayay waqtigii uu waayay, ballanqaadyadii eberka iyo fursadihii lumay. Wuxuu si hoose ugu dhaheen naftiisa, haddii aanan hadda isbeddel samaynin, caajisku wuxuu ii ahaan doonaa noloshayda weligeed. Subaxdii xigtay ka hor intaan qorraxdu soo bixin, amiir wuu kacay. Gacmihiisa ayuu ku soo saaray caajiska ka buuxay beerta. Shaqada way adkayd, dhabarkiisu wuu xanuunay, gacmihiisa dhiigaa ku soo baxay, laakiin ma uusan joojin. Ma uusan iska indhatirin hamiga, wuxuu maalin kasta daryeelay. Wuxuu hubiyey in geedkii uu koro oo uu noqdo mid xoog leh. Sannado kadib, iniintii hamiga ahayd waxay noqotay geed weyn oo miro leh, hoos leh iyo maal leh. Amiir wuxuu noqday nin geesi ah, shaqo badan oo la ixtiraamo. Tuulada waxaa loo yaqaanay beeralayga guulaystay oo ka adkaaday caajiska. Dhegaystayaasha qaaliga ah, sheekada amiir ma aha keliya wax ku saabsan beerashada, waxay ku saabsan tahay nolosha oo dhan. Qof kasta oo anaga naga mid ah wuxuu leeyahay laba iniin gudaha naftiisa, iniinta hamiga, iniinta caajiska. Hamigu wuxuu koraa oo guul keenaa haddii aad maalin kasta u quudiso dadaal, anshax iyo ficil. Caajisku iskiis ayuu u koraa, laakiin wuxuu burburiyaa riyooyinkaaga. Haddaba, haddii aad tahay qof hami leh laakiin caajis ah, xasuusnow, ha sugin beri, bilow maanta. Waraabi hamigaaga, ka saar haramaha caajiska. Waxa aad dib u dhigto maanta, berina riyadaada way dhiman kartaa. Haddii aad ka heshay sheekadan oo aad wax faa'iido ah ka baratay, ha ilaawin inaad like garayso videoga, subscribe ku samayso. La wadaag qof kale oo leh riyooyin waaweyn laakiin la tacaalaya caajiska.